بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ددوينها Djibouti meel kasto joogtaan waan idin salaamaya. waxaad la socotaan gelinkan dambe xaaladda siyaasadeed ee gobolkeena Geeska Afrika ka socota. waxaan ognahay in Érythrée iyo Ethiopia ay heshiiyeen. waxaan ognahay in Érythrée iyo Somali ay heshiiyeen oo xidhiidh ay yeesheen iyo kooyin muddo kala fogaa. waxaan ognahay dalkeennii Érythrée inay xaalad siyaasadeed oo xagga xuduudda ay ka taagan tahay tan iyo muddo 10 sannadood. waxaan maanta isdul tegaynaa xaaladaha siyaasadeed ee ku soo kordhay gobolkeena. walaalayaal, intaan hawsha aanan gelin waxaan halkan iska xasuusinaynaa kana sheegaynaa oon cadaynaynaa in xaaladda siyaasadeed ee dalkeena ee arrimaha guduhu ay cakiran tahay, iyadoon ognahay in mucaaradka la caburiyo, iyadoon ognahay in xuquuqal insaanka lagu tunto, iyadoon ognahay ummadda reer Djibouti inay dhibban yihiin, ciilan yihiin, oonan loo ogolayn siyaasiyiinta ama dadka xuquuqal insaanka inay hawlahooga iyo fikiradooda ay cabiraan. waan ognahay in dalkeena doorasho xalaali ayna ka dhicin. waan ognahay dalkeena muddo 20 sannadood inuu xoog uu ku haysto Ismaaciil Cumar Geelle. waan ognahay in dalkeena xataa xagga bulshada loo diiday ummaddu inay caanahay rabto ay cabto. waan ognahay deefta dalkeena soo gashi inay ummaddu ayna ka faa'iideysan. waxaasoo dhan waan ognahay in dalkeenu uu mushkilad siyaasadeed oo arrimaha gudaha oo dalkeena khuseeya, oo bulshadeena khuseeya, oo siyaasadeena khuseeya ay jiraan. waan ognahay walaalayaal, dalalku waxa ay ka qurmaan, ay ka dhibaatoodaan, oo gilgila, oo rabisha, oo dumiya waa arrimaha siyaasadda ee gudaha weeyi. markaas ay siyaasaddu xumaato, markuu hoggaanku xumaado, markay aragtidu ay gudho, marka ay ciddu ay tidhaahdo aniga maahine cid kaloo ila talinaysi ma jirto, aniga maahine cid kaloo maamulaysi ma jirto, aniga maahine marka ay noqoto waxa ay dhalisaa taasi inay dalalka burburiso. siyaasaddii gudaha een ognahay ee rabishnayd, ee cabursanayd, ee la cadaadiyey, ee jilbaha loo joojiyey, ee dhulka la jiijiidayey, waxaa ku soo biiray, waana wax la sugayay bay ahayd, in siyaasadda arrimaha dibadduna ay xumaato. maxaa taa ku tusaya walaalayaal? waan ognahay dalkeennu leadershipka ama hoggaanka gobolka doorka uu ka ciyaarayay. waan ognahay maantana xagga dambe ayuu joogaa. iska daa door uu ka ciyaaree waa uu yaaban yahayba, waa uu yaaban yahay. walaalayaal, innaka waxa aan rabnaa dalkeenna wanaagiisa baan rabnaa, midnimadiisa baan rabnaa, dhabarnimadiisa baan rabnaa, horumarkiisa baan rabnaa, isbeddelkiisa baan rabnaa, si uu bulshada u taabto, si uu dhaqaalaha u taabto, si uu siyaasadda u taabto. walaalayaal, markaas waan ogaanay inay gudaha dhibi ka jirto siyaasad iyo maamul xumo. tii waxa ku biirtay siyaasad iyo maamul xumo xagga dibadda oo keentay, waxaad moodaysaa aan ka xunnahay in dalkeennii cidhif loo saaray, in dalkeennii la go'doominayo, in dalkeennii mala la weydiinayo, in dalkeennii aragtidiisa la weydiinayo. taasina waxa weeyaan odhan mayno waa dalkeenna waxa aragtida la weydiin laayahay, waxa lala tashan laayahay, waxa dusheeda wax lagu wado waa taliska weeyaan. inaan kala saarno siyaasadda taliska iyo dalkiiyo dhabarnimada waa inaan kala saarno. waa laba arrimood weeyaan. qofka shakhsiga dalka maamuli ama talisku waa uu tegi doonaa, goor uu tagaba waa uu tegi doonaa, oo adduunku waa isbedelayaa. horaan u aragnay dalku waa uu jirayaa, dalku waa uu joogi doonaa, ummaddu way jiri doontaa, ummaddu way joogi doontaa, laakiin talisku waa uu socon doonaa. goor uu socdoba waa uu socon doonaa. marka
ummadda reer Djibouti waxaan ugu yeedhaynaa midnimo qaran baan ugu yeedhaynaa waxaan ugu yeedhaynaa inay dalkeenna ilaaliyaan baan ugu yeedhaynaa waxaan ugu yeedhaynaa nabad baan ugu yeedhaynaa iyo xasilooni baan ugu yeedhaynaa waxaan ugu yeedhaynaa isbeddel baan ugu yeedhaynaa waxaan ugu yeedhaynaa in la ilaaliyo dhabarnimada in la ilaaliyo in dalka la ilaaliyo Ismaaciil Cumar waa u tagi doonaa goor u tagaba waa shakhsi bilaadana waa shakhsi kooban weeyaan waqtigiisu waa xadidan yahay ilaahay baa xadiday subhanahu wa ta'ala ilaahay ayaa qof kasto bilaadanaba xadiday waqtigiisa markaas Ismaaciil Cumar iyo taliskiisa iyo ummadda reer Djibouti iyo dalka iyo dhabarnimada iyo qarannimadu waa laba kala duwan weeyaan waa laba kala isa weeyaan siyaasadda xun ee quruntay ee dalkii la hadhay ee shicibkii caburinaysay caanaynay cabaan u diiday ilaahay waxaan ka baryaynaa inuu si nabada oo khayr badan oo maad aragtay ummadda reer Djibouti u dhantahay iyadoo nabada oo gamcaha haysaysata ina ilaahay subhanahu wa ta'ala wanaag uu noogu bedelo walaalayaal ummadda reer Djibouti meel kastoo joogtaanba waxaan idinku dardaaraynaa khayrkaan idinku dardaaraynaa dhabarnimadaan idinku dardaaraynaa midnimadaan idinku dardaaraynaa sinaantaan idinku dardaaraynaa deganaanshahaan idinku dardaaraynaa kalgacalka iyo walaalnimada ayaan isku dardaaraynaa waayo waxaan ognahay hogaamiyayaashu markay mucangag yihiin markay kaligood taliyaan markay dalka boobayaan iyo ka baabi'iya dalalka markaas inaku baabi'i mayno waanu joognaa habeen iyo dharaarba waan ku qayliyaynaa walaalayaal waxaan idinku yeedhaynaa in la foojignaado baan idinku yeedhaynaa waxaan ognahay gallinkan xataa dadka qaarkood waxyaabo aan la yaabnay in dhagahayaga ay ku soo dhacayaan waxaan la yaabay oo runtii idhib gelisay oo runtii calool xumaysay dadka qaarkood oo leh waan bilileqaysanaynaa waan boobaynaa dalku waa u dumayaa dalku waa u baaba'ayaa iyuu ka baabi'i dalku innaku naga baaba'ayaa cidda la bilileqaysani waayo waa innaka weeyaan walaalayaal arrimaha dalalkii burburay ee baaba'ay ku dhacay inayna nagu dhicin dalalkii burburay ee hogaamiyayaasha mucangag ay baabi'iyeen inay sideeni nagu dhicin walaalayaal Ismaaciil Cumar waa iska tagi doonaa waa shakhsi weeyaan laakiin cantooba nahay innako dad kooban baan nahay afar qof baan nahay inaan ilaalino midnimada inaan ilaalino nabadda inaan ilaalino dhabarnimada inaan ilaalino isku taggeena iyo xooggeena iyo is-aaminkeena walaalayaal waxaan ku soo gabagabeynayaa fariin ayaan u dirayaa taliska waan ognahay Ismaaciil Cumar inaad ku fashilantay siyaasadii arrimaha gudaha adigoo kari waayay ummadda inaad dhinac u jahaysid adigoo kari waayay inaad siyaasadda furfurtid adigoo kari waayay inaad nabad ka shaqaysid gudaha dhexdiisa oo waxa aad taqaanidu noqday kani xidh kani ku jajabi kani masaafuri kuwan rasaasee kani shaqada keeri kani baasboorka ka qaad waxaabay noqotay siyaasadaadii arrimaha gudaha tii dibaddana waan ognahay shalay markaad la heshiinaysay dalalka adigaa dee la heshiiyey baarlamaanka waan ognahay wax dooda oo ay ka wada hadleen inayna jirin wax kastaba in duuduub kulli qalaleeyahay waan ognahay walaal waxaan kugula talinaynaa oon kuu soo bandhigaynaa inkastoodana ka xoog nagu muquurinaysid inkastoodna cadaadinaysid inkastoodna xidhay inkastood baasboorradeedii gamcaha aad ku haysatid si waxaad adigu leedahay inkastood dadka shaqada keeriyaysid waxaa la yidhi Soomaalidu waxay tidhaahdaa nin sunku siiyey subag siibay tidhaahdaa dad diin le baan nahay oo iimaan leh dad ilbaxa baan nahay dad dabara baan nahay dad dadkooga iyo dalkooga jecel baan nahay waxaan kugula talinaynaa 20 sannadood ayaa talada haysaa waanad ku dhagan tahay oo doorasho xalaalana ma ogolid waxaan kugula talinaynaa inaad ka fikirtid dalka sideedu badbaadin lahayd inaad ka fikirtid dalka sidaad u badbaadin lahayd inaad ka fikirtid naftaada sidaad u badbaadin lahayd inaad ka fikirtid ehelkaaga sidaad u badbaadin lahayd inaad ka fikirtid ummadda reer Djibouti qarannimada sidaad u badbaadin lahayd waana weeyaan
waano walaaltinimo waano ilbaxnimo weeyaan waano diinnimo weeyaan ummadda reer Djiboutina meel kastoo joogtaan waxaan idinka leenahay dalku waa dalkeennii dadkuna waa dadkeennii diintuna waa diinteennii waxa aan rajaynaynaa oo kale oon ku soo gabagabaynayaa arrimaha nabadda ee la tolayo inuu dalkeeguna uu ka qayb galo in xuduudda dhibta ka taalla Érythrée iyo dalkeegana in si nabada oo wanaagsan oo ilbaxnimo oo adduunkuna uu ka dhexdhexaadiyo in insha Allah ta'ala iyadana lagu dhameeyo waayo waxa weeyaan dagaalku xal maaha dhibtuna xal maaha ummadda reer Djibouti meel kastoo joogtaana waan idin salaamayaa dalkeenna oo nabada dadkeenna oo nabada dadkeenna oo mida dalkeenna oo mida insha Allah ta'ala jamhuuriyadda Djibouti ha noolaato shacabka reer Djiboutina ha noolaadaan والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته